kulanti waan daawadayaasha ku xiran janaalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa fanaanad caan ah oo sheegtay in la sixray. haddaba waa kuma qofka sixray fanaanadan caanka ah? yaase ka dambeeyay in la sixro? wadankeesa lagu soo sameeyay sixirka lagu sixray fanaanadan? inta aanan ku bilaabin qisadan murugada badan, daawade haddii ay tahay booqashadaadii koowaad ee aad halkan ku timaado, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe aad saarato, furatana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada aan halkan kusoo baahiyo. takalna waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saarto ma garanaysaa fiidiyogan like saara. waxaan rabaa inaad fiidiyogan like saartiin inay lacag ama qaadaye like iska saar. haada ku hadlaya adiga nimikay daawanaya inaan walaal muusa laakiin ma wali Fartuun Cumar oo ahayd fanaanad caan ah laakiin hadda fanka iskaga baxday guud ahaantiisaba kana toobad keentay ayaa sheegtay in la sixray. sixirkaas la sixray awgiisna ay isbitaalka u gashay, dhibaatooyin badanna ay kala kulantay, xataa ay awoodi weeday inay lugaheeda ku socoto. arrintan foosha xun ee lagu sameeyay aawadeed waa kuma dadka sidaan u galay fanaanadan caanka ah ee sixray iyo sababta ay u sameeyeen dadkan arrintan sameeyay ee sixray Fartuun Cumar. haddaba dadkaasi waa dad fanaaniin ah oo ay saaxiibo ku ahaayeen fanka. sababta ay u sameeyeen keentana inay sixraan ayaa ah in ay fanka dib ugu soo celiyaan si ay ula heesto. subxaanallah, qof ilaah dartiis ugu baxay fankii ayaa waxaa loo adeegsanayaa in la sixro si ay dib ugu soo noqoto fankii ay ka baxday. Fartuun Cumar ayaa sheegtay in dadka sidaas u galay ay ahaayeen dad ay aqoon u leedahay, laakiin Fartuun Cumar ayaa si cad aanan u sheegin dadkan fanaaniinta ah ee iyada sixray magacyadooda dhabta ah. fanaanadii hore ee Fartuun Cumar oo barteeda Facebook soo gelisay qoraal ay ummadda Soomaaliyeed kaga codsanayso inay faataxada u maraan dadkii ficilkan foosha xun ku sameeyay ee sixray eena dhibaateeyay, inay ummadda Soomaaliyeed faataxada u maraan inuu Ilaahay ka qabto. qoraalka ay soo gelisay barteeda Facebook ayaa u qornaa sida tan: subxaanallah, marka koowaad iyo mar kasta Ilaahay ayaan tala saartay. heblaayo iyo hebelow, Fartuun Cumar bariis loo qoray cuni maysiin, ilmo hoosteeda ka soo bixi lahaana dhali maysiin. saa la idiimada qorine, Ilaahay ayaan idinka magan galay. sixir aad la wareegaysaan amba Hindi ha idiin samayso amba Suudaan. ku xisaabtama kalmadda Ilaahay ayaa ka weyn. sariir isaarteen inaad idishaan isku daydeen, gurigayga inuu burburo isku taxaluujiseen. maxaad hesheen oo aan aakhiro iyo adduun seeg ahayn? haddaan awlaad xalaala ahay oo aan dembi idinka gelin, calaamad ummadda idinku ogaato, Ilaahay ha idinka soo saaro. anigu idin sheegi maayo, laakiin xaqaa idin sheegi doona markaad hoostiina ka heshaan. asxaabay, dadkaas dhibaateeyey faataxada iigu mara, qof dambe inaysan dhibaateenin, Ilaahay ummadiisana uu ka qabto. wabillaahi tawfiiq. fanaanadan ayaa si dadban u sheegtay in dadkan sixray ay yihiin dad fanaaniin ah, rabayna in ay fanka ku soo celiyaan, walow aysan sheegin dadkan fanaaniinta ah ee ficilkan foosha xun ku sameeyay fanaanada magacyadooda. fariin caafimaad, habdhaqanka looga badbaado corona ama aad uga hortagi karto waxaa ka mid ah in gacmahaaga aad ku dhaqdo saabuun amba aad ku buufiso alkolada disa jeermiska. fadlan ka ilaali wejigaaga gacanta adigoo aadan dhaqin. fadlan ka fogow meelaha dadka faraha badan ay iskugu imaadaan. ha ku qunficin qof kuu dhow. haddii aad aragto qof qunfacayana ka fogow ilaa 1 mitir, sababtoo ah fayraska ma socon karo wax ka badan 1 mitir. haddii aad isku aragto xanuun, iskarantiin inta aadan dad badan u gudbinin fayruska. ka hortagu wax uu ka wanaagsan yahay daaweynta. fariintan waxaa idin soo gudbiyey Shabeellaha TV.